assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. soo dhawaada saaxiibada qiimaha badan ee ku xidhan janaalkani walaalaha family. waa mar kale iyo muuqaal cusub. muuqaalkeena maanta waxaynu kaga hadli doonaa goosgooska koobaad xalqada 65aad. mar labaad ayaan kusoo dhaweynaya. haddaba daawade haddii ay tahay markii kugu horreysay ee aad soo booqato janaalkani walaalaha family, fadlan janaalkani subscribe saar, sidoo kale muuqaalkanina like saar. aad iyo aad baad u mahadsantahay. intaa ka bacdi aynu guda galno muuqaalkeena maanta oo ah mid aada u xiiso badan. haddaba sidaynu hore usoo xusnayba, muuqaalkani ama goosgooskani aynu hadda falanqeynayno waxa uu yahay goosgoos aada u xiiso badan, wax badanna ku saabsan xalqadii ina soo dhaaftay oo kala xidhiidho arrimo fara badan. haddaba haddii aynu guda galno oo aynu aragno falanqeyntiisa, ugu horeyn waxaa hadlaysa aasiya oo la hadlaysa islaantii lagu magacaabi jiray safgey, oona odhanaysa waxaan ka imaaday islaantii sheewaa lagu magacaabi jiray, oo waxaa u sheegaysaa arrinkaasi. taasina waxay noo cadaynaysaa oo halkaasi inooga cadaanaysaa in ay dabcan la ogaanayo in ay aasiya lacag ka soo qaadatay islaantaasi lagu magacaabo shiwaal, ahna islaanta axmed yalmaas dhashay saarb. markaasi kadib waxa aynu arkaynaa oo aynu u gudagalaynaa gabadhii lagu magacaabi jiray a b k oo dhahaysa hadal kooban oo ah ish waan gubanay. intaasi ma dhaafinayso gabadhani lagu magacaabo a b k, oo hadalkaas ayaa ay intaasi kusoo koobaysaa. waa tahay haddii aynu gudagalno qaybta xigta, waxaynu arkaynaa muuqaalka ku xiga islaantani lagu magacaabo shanguul oo la yaaban wax oo dhahaysa erey ah sidee yacni oo dabcan wax la yaaban. kolley waani ahaantay waxay la yaaban tahay in ay maqashay cumar iyo inay ka guurayaan guriga ay degan yihiin haddan, ama xero digaagani ay hadda degan yihiin inay ka guurayaan oo ay degi doonaan meel fiican oo raaxo badan leh. oo xataa qaybaha dambe goosgooska waxaynu ku arki doonaa dadka qaar u dhahaya dabcan waanu ka guuraynaa istanbul, waxaynu u guuraynaa magaalo kale oo inaga inoo gaara, balse way noo soo socotaa. haddaba sidaasi ayaa ay odhanaysaa islaantani shanguul lagu magacaabo, maadaama oo ay maqashay ani ahaantayda in ay guurayaan cumar, iyo sidaas daraaddeedna waxay odhanaysaa sidee yacni. markaasi kadib waxaynu gudagalaynaa oo aynu arkaynaa muuqaalka xiga, waxaana uu dhigan yahay sida tan. arrin la xidhiidhadkii hadda aynu ka hadlaynay oo islaantii safgey lagu magacaabi jiray ayaa dhahaysa hadal ah waxaynu rabnaa inaynu isaga tegno noloshaani oo aynu ka tegno nolol tan ka wanaagsan oo ka qurux badan, si aynu ugu noolaano oo aynu ugu baashaalno. kadib ugu horeyn cumar ayaa dhahaya sidee yacni. kadib gabadha yarada lagu magacaabi jiray email ayaa hadlaysa oo odhanaysa iyadna hadda ma istanbul ayaan ka gurayna. hadda ka hor anigii kuu sheegay wax yar ka hor, daqiiqado yar ka hor, in ay odhanayaan dadka qaari xataa sida yacni oo ma istanbul ayaan ka guuraynaa. gabadhan yare email ah ayaa hadalkaasi ku dhawaaqaysa, dhahaysana sidaasi oo hadda ma istanbul ayaan ka guuraynaa. adiguna anadka gabadhani aasiya lagu magacaabo ayaa dhahaysa cumar iyo libanateere naqan email lagu magacaabay la hadlaysa. waxayna ka odhanaysaa habaryo safgey way saxan tahay oo waxaynu rabnaa inaynu ka baxno noloshaani hadda aynu ku sugannahay oo aynu isaga tegno meeshaana aynu hadda ku sugannahay, ama gurigaani aynu hadda degannahay inaynu isku guurno ayaa habboon, ayaay odhanaysaa gabadhani lagu magacaabo aasiya. dhanka kale waxaynu arkaynaa gabadhii aasiya lagu magacaabi jiray oo la hadlaysa dooruug, kana dhahaysa waxbaa jira aanad adigu ogeyn. dooruugna waa uu iska fahansan yahay inay baxi rabaan, isaguna waxa uu odhanayaa hadda ma tigidhadii ayaa soo jarateen. hadalkaasi ayaa ku hadlayaa oo uu dhahayaa ninkan lagu magacaabo dooruugka ahi. haddaba waxaan filayaa inaan nii dadejiyey goosgooska oo aan nii boobsiiyey. muuqaalka ugu dambeeya ee ah waxoogaa qaybta dambe ee muuqaalka ayaanu soo dulmari doonaa, balse muuqaalka u dambeeya ee goosgooska ayaa waxauu yahay islaantii shanguul lagu magacaabi jiray, welibana sidoo kale islaantii ganuul ahayd ayaa waxaynu arkaynaa hadallo ay leedahay islaantani shanguul lagu magacaabo, iyadoo dhahaysa aniga waxaan ahay islaantii shanguul libaaxadii shanguultii libaaxadda ahay shanguul. had u isfaanaysaa hadalii dhammaan. halkaasina waxaan ka ogaan doonaa waxay ku badboodaysaa islaantani ganuul lagu magacaabo. waxaynu halkaasina ku ogaan doonaa in ay ogaatay gabadhani ama islaantani lagu magacaabo shanguulihii inay ganuul gubtay gaarigii ay iyadu lahayd, oo way u hanjabaysaayoo dee si xun ayay ula hadlaysaa. marka aynu u fiirsano xataa ereyada qaar waxay ku leedahay waan ku dili
waxyaalahaasi ayaa ay ka horeysaa. Haddaba inta aynu soo dulmarin gooskooskani oo aynu soo bilaabin, waxaan jeclaan lahaa inaan ila wadaago ratingka musalsalkani iyo halka uu gaaray maanta ama xalay markii uu soo baxay. aduu haddii aynu eegno waxa uu wax badan ma kordhin oo kuma aysa biirin, balse waxoogaa unbaa ku biirtay. oo hadda haddii aynu eegno ratingkii hore xalqadii ayna dhaaftay waa tii 60aad waxay ahayd 7.5, halka xalqadani 64aad ay noqotay keliya hataa 7.8 ay noqotay, balse aduu wax yar oo different ayaa u dhexeeya. taasina waa inay yar kordheen daawashada musalsalku maalmihii u dambeysay, waana arrin lagu farxo. balse waxaan rajaynaynaa inkastoo lagaga horeeya kaalmaha hore oo ay ku jiraan musalsalada qaar, balse isaga waxaan rajaynaynaa inuu xalaqaadka soo socdo soo galo kaalmaha u horeeya oo uu xiisa yeesho musalsalku sidii uu xiisaha badnaa maalmihii ina soo dhaafay ama xalaqaadkii ina soo dhaafay. waa tahay haddii aynu u soo laabanno haddaba gooskooska waxyaalihii ugu muhiimkasanaa oo aynu soo yara dulmarno maadaama soo boobsiinay oo aynu soo dadejinay. haddaba ugu horeynta haddii aynu in yar soo koobno, in ay Aasiya u sheegayso islaantii lagu magacaabi jiray Sevgi inay ka soo qaadatay lacag islaantani uu qabo Axmed Yilmaz Sheewaa lagu magacaabi jiray. halkaasina waxay nooga caddaatay in la ogaaday inay lacag ka soo qaatay oo u sheegtay islaantani Sevgi lagu magacaabo. dhanka kale ee muhiimka isagna waxa uu yahay islaantani Shanguul lagu magacaabo in ay iyadna ogaatay in ay ganuul gubtay gaarigeedii, maadaama oo ay hadda xalqadiina soo dhaaftay ayna ogeyn in ay gubtay gaarigeedii, balse in ay ogaatay ayay noo caddaatay oo aynu ku aragnay gooskooskani 65aad xalqadeeda. soo kale arrinka isagna muhiimka ee ku jira xalqadani ayaa wuxuu yahay in ay Cumar iyo welibana Aasiya iyo Sevgi iyo welibana gabadheere Emeel lagu magacaabo ay xalqada soo socdaan ku fikirayaan inay ka guuraan ama ay isaga tagaan mooradani ay degan yihiin ama xira digaagani ay degan yihiin ee ay ku jiraan musalsalkani oo ay u guuraan meel fiican oona ay ku noolaadaan nolol qurux badan, kana qurux badan tan ay hadda ku nool yihiin waa sida ay iyagu rabaan. dhanka kale waxaa jirta in uu ogaaday Dooruug inay ka soconayaan meeshani ama Istanbul ee dadkani Aasiya iyo welibana sidoo kale dadkii waxaan horey u soo xusnay oo ay Aasiya u sheegtay oo ay ka tiri keliya taa hadalka ah Dooruug waxaadan ogeyn ayaa jira, isagna uu dhahay oo hadda tigidhadiina ma soo goosateen. haddaba waa tahay waynu soo dulmarnay, mana rabi muuqaalku inuu sii dheeraado. waxyaalahan ka tagnayna muuqaalada ku xiga ayaa aynu si faahfaahsan uga hadli doonaa. waanad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkani. waa aniga oo walaalkiina Muuse.